السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هلكن كسلام يا أمة الإسلام كميل كستو أي شوجا. وحنا هلكن كلا هذا يا حمدي مع العنى صوبحي دوني. هدي أنا وأنكو هفريو أو آذن محي أهيدي دبقلتا أهين وأنكو هفريانا إلهي بايقا بالمريسات شيختي. haddii aad dad qalata tahay oo gabadhaydu kugu maqan tahay oo muslimka ilaahay gabdhahooda iyo wiilashooda kugu maqan yihiin waad soo bixi doontaa ayno garnaqaya meel aan maxkamad ahayn iyo anigii adiguna ku wada hadlimayno ama qiiq isku qari ama dhooba isku xal ama badda ku dabaalo adiga leewaay ya ama dacbood ama buur karoora fuur ama beexaan isku maqiiq ama bilees xoog la keeno ya gaal jecel oo dhan u yeedho wallaahi oo billaahi oo tallahi ilaahay mooyaane inaan aadmi anoo dhinta mooyaane aynaynu kala hadhay gabadhaydiina adiga sandulle adigan ka raba gabadhayda sidii kiish baradha ayaa diibsatay cadaynteedii oo dhan waan haystaa magarat kiishka baradhada asaw lama yidhaaho magaalo hebla kiish ku deji magaalo kale kiish ku deji magaalo kale ku deji sidii oo kale baa aniga gabadhaydo ilaa maalintii ay tuugta adiga iyo tuugta kale ka kaxeeyeen meesha la yidhaaho yaman ka kaxeeyeen telefoon baan saa dhigta ugu hay xagee maraysa xagee geysay gabadhii yaad u geysay xagee geynaysa wax walba saasaan wala xiriiri beenna anigu ma sheegan naclatullaahi calal kaadibiin afkaaga iyo dhigahaaguna isma maqlayaan afkaaga iyo dhagahaaga hays dhageystay calooshaada iyo afkaaguna hays waafaqay waa fahantay soo maaha gabadhaydana yaa rabbiyo ku canshiya anoo ku cafa mooyaane walla caafimaad uma fadhidid caliyo ugu hoodle walla inaadan caafimaad Sacuudi Arabiya ugu fadhiyaan dib oo u dambaysa Soomaali baan dawarsanayaa guriga aad joogto meesha la yidhaaho khamiis mushaad ayaan kuugu imaanaya haddaanan dhiman soo ma fahmin aniga maalkii waad iga dhamaysay dhaqaalihii waad iga dhamaysay gabadhaydii waad cuntay yaa aymikana adigan ka raba waa haddaad rabto xaqiiqad anigu ku caay maayo ku habaari maayo waxba ku geysan maayo laakiin gabadhaydii adigan ka raba ma fahantay maxaa intaasoo xoga ku ogeysiiyay haddaadan gabadha warkeed ahayn haddaadan adigu iibsan maxaa intaasoo xoga ku ogeysiiyay waadiga le ninkii baabuur bay ka carareeno baabuur baa dadkii ka kala yaacay meesha baabuurka ee dadku ka kala yaacaya laami buu ahaa waxa laga yaacayaana shuurda yahay maxay shuurdadii gabadhayda u soo qaban weyd waa su'aal nin baa dib ugu noqday carab oo Yaxya la yidhaaha waadiga leh maxay u soo raaci weyd dadkii la socday maxay u dhigay waa su'aal kale waadiga le maxay ahayday meel bay ku dhacday oo dadkii baa dusha ka maray maxashkii bay meeshu ahay ya maxaramkii bay ahayd oo dadka dusha iska maray nahoy wax ma ku sheegay allamay oo ummadda rasuulka ma tahay oo ilaahay ma taqaan tani tii kadabka ku go'ay weeyii kadabka waa tii ugu dambeysay gabdhihii Soomaaliyeed baad cunta dabbaad la dhacday carab baad u xaraysay xabashi baad u xaraysay buuraad ku xaraysay qoobabkay xidhan yihiin yaa adiga iyo inta la mid ahi gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii Soomaaliyeed way idinku maqan yihiin waa fahantay Soomaa way idinku maqan yihiin ilaahayna wuu ka abaal marinayaa yawma laminalaya yawma la tamliku nafsun li nafsin wala yawma idillah ilaahay maalinu ku xisaabayo oo aniga ay xisaabaya haddaan ka gardarnahay oo waxa weeye aan ku jaa'ifeynayo baa jiri doonta anigu dadka maanta wixii aad ii geysatay yaa toban nin oo saa loo gowraca dhibaatada aad igu samayseen adiga iyo intee kula shaqaysata 10 nin oo la gowraca kuma cilbaxo maanta ka horona waligay media ma fadhiisan waxa aan ururinayay inta oo sano waa xogtaadi inta qof aad iibsatay inta qof maxay ahayd aad dhibtay gabadhaydii sidaad u waxaysay gabadhaydii sida ay igaga maqan tahay meesha aad marisay inta isu dhiibtay kulli waan hayaa soo bood bari waa kan banaanka iskeen baan ku yiri leefka waadiga soo fadhiisanay ar gurigaaga soo sheeg
gurigaaga iigu kaalaya dheh maaliya aniga maamada noo garnaqa bal gurigaaga adigoo aan lagu qaban oo cidi ku dabas joogin oo aan cidi ku doonaynin bal gurigaaga Soomaali xooluhuna baa la yiri waxa isku afgartaan urta bini'aadankuna waxa uu isku afgartaa waxa weeye waa wada hadalkee bal Soomaali intaad wacdo isaaq iyo daarood iyo hawiye iyo waxa laale wixii Soomaaliya oo dhan iyo inta kale oo dhan bal intaad wacdo ya Soomaaliya aniga gabadhaana garnaqsiyo bal baan ku iri intaad gurigaaga fadhiisato isu keen muslim oo aniga telefoon ugu leeyahay jawaal ugu la soo xidhi beeni raad male waxa weeye muslim baynu leenahay dawlad baynu leenahay rag baynu leenahay islaam baynu leenahay ilaahayga sabca sabawaati wal ard allaha dhisaytir laan taagay ayaynu leenahay culumaynu leenahay keenin kardaran iyo keenin khaayina rabbi wuu arkaya subhanahu wa ta'ala waanu ka sheekayn doona soo ma fahmin aniga jawaalka Saudi Arabia ayaa laga helayaa hadii codadka la baaro wixii markii gabadhaydu sii socotay aad igula hadlaysay ka golis oo boosaaso oo aan kugula hadlayay baa laga helayaa wixii aad igula hadlaysay waa fahantay soo maaha adduunka baan ku iri wax qarsoomaa ma jiro xamdiyay gabadhaydii hadaa dishay oo adiga iyo maxay ahayd naagihii iyo nimankii aad wada shaqaysanayseen disheen oo ay dhimatay dhakada alla ka saaray bartaas alla ka saaray kaamana degis aniguna mid xoolo iyo shilimo iyo adduun qaadanaysa iyo mid wax ku falaysa midna meehi waa fahantay soo maaha waxa ii sii dheer gabadhaydii hadday nooshahay oo carab u xidhan tahay iyo hadday gaal u xidhan tahay oo xabashi u xidhan tahay adigaan ka raba waxba qiiqay isku qarin waxba Soomaaliyay gabadhu sidana ay ahayd kaadi baa furatay halkay dilaacday maxaa ku ogeysiiyay tuugow hilaac yaa kula ogaa maxaa ogeysiiyay anigii dhalayba ma saa ula hadlayayba meel furatay iyo meel dilaacday iyo meel waxaysan toona ma ay sheeganayni yaa kula ogaa waa kow fahmada aad leedahay maxay ahayday foosiya gurigeeda loogu waramay gabadheedu inay dhiigaysay inay dheecaamaysay oo saasay ila joogtaa waxaan u geynayaa waxa weeye wax allaale iyo waxa dunyada wixii sharci yaqaan oo sharci wax ka yaqaan laba gabdhood oo midina hawiye tahay midina isaaq tahay baan gurigeeda ku waraystay oo la socday gabadha markii aan waayayna iyo aan jeelka sijinka aan ku waraystay jeesaan may fahantay markii dambana maxay ahayd gurigeeda aan ku waraystay iyagoo haddana mar laba tahriib u socdo waxay yiraahdeen xamdi way joogtaa baan leeyahay gabadha la yiraahdo fahma waa joogtaa ma fahantay waxaan ku sheegayaa allaha haduu alla yahay oo aad umada rasuulka tahay indhahaad iga riday oo dhiikar baad igu riday oo waxaad igu riday sonkor baad igu riday oo waxaan ku leeyahay maalkii baad iga dhamaysay oo naf iyo maal gabadhaydii maanta ma haysto oo maalkay ma hayo oo waxa weeye waa ii soo cadahay haddaad asaraar u taagnaato anigu sanadka inta ka hadhay baan gabadhaydii aan doonaya dib oo u dambaysa yaa dib u dooni maayo haddii tolkaa ku yiri waxa weeye ay tolkaa ku yiraaheen boosaaso waxa weeye waynu ka tahriibaynaa oo wayn xaqaynu u baxaynaa hay haata lima caduun baan ku yiri hay haato lima caduun shanta bilood oo ka hadhay sanadka ayaynu maxay ahayday 6 bilood ee sanadka ka hadhay ayaan gabadhayda doonayaan inta ka dambaysa alxamdulilaahi rabbil caalamiin aakhirana waa la geeyaa adduunna waa la geeyaa laakiin waa lagu gowracayaa baan ku ama dhacama bood waan ku gowracayaa haddaadan gabadhaydii ii soo saarin kuwii aad gadataan moobeelka ku haya aan wax ku duubayo kuwii aad gubtay baan moobeelka ku haya aan wax ku duubayo kuwii aad maxay ahayday lacagta 3 kun iyo 4 kun lagaaga soo daayay baan haya reer khamiis mushaad oo dhan baa ku caaliya waa meesha ka soo qaxday markaan gabadhaydii aan dacwadeedii joojin waayay maxaa ka soo qaxiyay meesha 10 caruura ku dhashay maxaa gurigaaga ka soo qaxiyay ma malaku mood mooyay wax kale aan gurigayga uga tagi karaa
نقلها وأدو عليها أو أد أمضى الرسول كتاي أو إلهي آتقان أو أد مسلم تاي قبل يدي مالك شيء قبل يدي مالك شيء حمدية قبل يدي مالك شيء قبل باسبور كده يا موبيل كده قولي الله كياني إيه أد هبينكي أن قبل يدي لها إن حلو أنا لها إيه ونكون توجه هذيك كادرانة ومدة كوسو تلابة ولها محي هيدي مامو نقدر موبيلك إن بابور كيبان راعينا إلها يا إيه مركو هذيك كوي منه الله باستا دادير تكريه أو باستا جاجاب تكرين يوم بيصلانة يسي الله يا نحمدي أيوة لقوا يقين حمدي أيوة لقوا يقين تاني واتو كذا بكاكو قاي واتي قبل سومالية كو قدام بيسي وانا تي كذا بكاكو قاي واتي هو يدا هداد فريد وهايد معسكا قدكتي يا واتي هداد عيد كاميرا يسيدول كاكو دكتي اللي هاجو هدو اللي هي قبل يدي ميل يقش ومدى رسولك أهدات هاي قبل يدي ميل يقش وح الله لو حنكوها استمانت متشرو مال كادوني مايو وموت كادوني مايو ومحاكمتكو جين مايو ودعوة هذا مربو اللي هاجو هدو اللي هي قبل يدي ميل يقش أديك يدوقو يوسفي بانو هايستا هدير عن ليه وهدو بان ليه يا إساق عمر يوسف هدير عن ليه وهدو بان ليه وهدير عن ليه قبل إذا موبيل كادو مركو كويمي يا باسبور كذا وادي قال لقى ما ضافو قرما ودك كوجو دمبيس أرادوا يمن دونو رعدي هذا في صدى يمن ضلبان وواحد سيبدي عدو دوقسي أنا دون كورو هيني نايا واحد كوجوري وادي قال لقى ما ضافو محي هيدي إن لقى ما ضافو وادي قال محي هيدي في صدى لقى ما ضافه تأرادوا كتلاب صبدا كتلاب صدق سوماليا جود يو سعودي قاعد كو حنجر دوقة كنت هاي حنجر دوقة دي هاي وحن كوجي على التحال قبلي هاي هذا الوحن كسوق جبي يا وحن هذا الكوج جبي قبلي أذان كهرباء أدي كان قبلي كهرباء ليف أذان كهرباء أدي كان قبلي جوري جا مركي أي بس بقول كده موبيل كده يالي إيه ومحيا هيدي دار ده حجرت هذا صور كده سيده رادين يجي قبلنا إيه وعم نور هرت هذا مرة صور كده سيده وقتن قبل ما سبور كده وحدي واقع ما تداه مركي هبين كده نسنيسي شن بلاد كبعد عاد موبيل كعجة شدتي يا كنت أنا يصدق حدود دم بيسو عادي شدتي يا كويرينا يا كويرسني ما تسكت وقبلنا وقبل قريبه ما تقاني قف كاني قف كاسكلي يا قبيلة دم بيدين كلا سعودي ما تقاني قبيل دم بيدين كلا سعودي قبيل دم ودارود ليدا أيا قبلنا يريدين كسورة قبل دايرتا عاد محي هيدي دارود أهان دوبتين يا اللي وحوي دوبتين ما يضي قبل مياد عنتين هداي هالك فريسطي أو إذا كهداي أو أي محي هيدي دوشة سيدا عاد كمرتين حشكي أو عاد هالك كجتكتين يا واحد دقيقة قبلنا يا شهور ده يعني محي يقعد ويانا يقبل ويا لوكم يا لقاي مياد عنتين مياد كرستين سووا قشين قبل دي waxaad leedahay sabiya iyo sabiya agteeda meel abay yahay ma sabiya agteeda lagu dhunta ya sabiya agteeda miyaa lagu dhuntanaya baabuurka khaaska ah aad gabadhayda saartay marka daa'ir ka soo saartay aad baabuurka khaaska ah saartay naahoy allahaagu allameeyay waa imisa jeer baan ku aabiyay gabadhaydi meel igu sheeg hadii kale gaal jecel iyo waa la isku rogmanaya hadii aan dabkan aad shiday aadan baqtiin ya waad ku beleeli doontaa حقيقة بأنكو شيء يعني جو قبل دايدي وحنا هاين مرة أديك عيدان هاين كامر أديك عيدان هاين كامر وحين ترى لوقت بعتهاي قبله الصومالية تودن بيسي أكفر شلانتي ويا تاني وامد هو يدي دبس عتي وتهاي وامد هو يدي وحوي أي محي هيدي أي رالك هاين تهريبيو يا رفاتون ما قرأت هذا مسلم تهاي ومدى رسول كتهاي صومالية وادنا مقلسة Soomaaliye waadna maqlaysaa waad u jeedaa walaal ama waxa weeye dhabanada soo casayso ama ilkaha soo jajabso ama afka soo kala dheere waan ka aqaan baan ku yiri gabadhayda waan ka aqaan summa wallaahi oo billaahi oo tallah idan adiga hayna ka raadin maayo iyo inta kula socoto ii keen gabadhayda ii keen muslim hadaa tahay hadaa ii keento هذا ذيك أنت قبل دايدي وأنكو عفينا يا وح الله لا يا وح الدنيا لا وح الدنبية وأدي قصة ما يصير إلهي درتي بانو قتي يا رب درتي
rabbi dartii baan uga tegayaa ilaahay dartii baan kuu cafinayaa waad i dulmiday waad iga oohisay indhahaad iga riday waad i wada dulmideen dhibaataad igu samayseen gabadhaydiiyo hal qabiil idinka aad ka afduubateen oo hal qabiil idinkala socoto 72 iyo 2 ruux oo kale gabadha la socday maxaa 72 iyo 2 ruux kale ay u wada nabad galeen maxaa gabadhii yarayda daaroodka ahayd kaligeed maxaa loo qaatay maxaa loo iibsaday maxaa loogu kala iibsaday sidii kiish baradha maxaad u kala iibsatay xogtaadii oo dhan ana soo bandhigay xogtaadii oo dhan waan soo bandhigayaa haddii aad maxay ahaydeen aad ilaahay taqaano oo aad muslim tahay oo ilaahay taqaano ya Saudi Arabia dadka jooga ku og ana waan ku ogaa istabaqabo dad munaafiq shiday muumin baa ku gubtay istabaqabo dib oo u dambaysa leefka sida aan u soo galay baa iga sala dib oo u dambaysa anigu ma dul qaadan karo walaalay allahaagu haduu alla yahay oo aad umada rasuulka tahay gabadhaydii meel igu sheeg halkay ku dhacday halkay ku jabtay halkay ku milantay halkay ku maxay ahayd ku dheecantay halkay ku kanaysay waxa adaa lagu yidhaahaa walaal aniga leeyma yidhaaha Foosiya Cabdi Casiis baa la yidhaaha wallahi inaan ka harayn baan ku yiri 500 haday u dhimanayaan 5 kama harayo gabadhaydii baan ka aqaa aadna waan idin salaamayaa dadka islaamka ay ku jira hala sheer gareeyo waligay leef ma soo dhigin hala sheer gareeyo dadka qofka xaqa ku hadlaya iyo qofka kale Soomaaliya waad kala taqaan ka xaqa ku hadlaya ka xaq darrada ku hadlaya waad kala taqaanin dulmiga iyo qofka dulmiga wada iyo qofkan wadin waa kala taqaanin Soomaali oo dhan baa Saudi Arabia ku nool maxaana fartaa qof uga soo qaat ya gabadhayda mahrabiin baa la tahriibay niman mahrabaa baa la tahriibay oo wadada la mariyay gabdha Soomaaliyeed baa la tahriibay kuwa Saudi Arabia mahrabiin oo gabdha dumar baa la socday maxaana iyaga uga soo qaat ya waxa weeye midho niman cunin ma qabtaan waxa weeye afarta qof waa afarta qof oo aan cadeyntoodii hayo ama aniga gaari ha saari ama buuraha ka gudbiyay ama bad ha ka ajiirsiiyay ama meel kasta ha mariyeen anigu afarta qof aan haystaa dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsanayaa hadday dawladayadii yihiin oo ay dawlad islaam yihiin oo ay madaxdayadii yihiin oo ay maamulkayagii yihiin aniga iyo dadka ayaan la isku kaayay eegan meel ka xun baad ka xalin doontaan meel ka daran tan maanta ay haysata mid ka daran baad xalin doontaan ya waxaan idinka codsanayaa dawladda Soomaaliya ya inaad annaga iyo dadka kala qabataan inaad annaga iyo dadka sharciga islaamka noo hor keentaan inaad annaga iyo dadka noo garnaqdaan inaad annaga iyo dadka waxa weeye xogtooda mid walba gaar u waraysataan baan horta ka codsanaya dawladda Soomaaliya hay isku kaayay eegina 3 sano oo wax yar dhiman baanu isi saaranahay annaga iyo reerkaas welina waanu isi saaranahay waanaanu is dhamaynaynaa haddii ayduna dhixi gelin arrintan wax ka qabta dawladda Soomaaliya wax ka qabo haddaadan ka qabanaynin dee waxa weeye Soomaaliya sideedii un bay ku noqonaysaa waxaan nolol ma dacwad baanu halka galay annaga iyo nimanka la yiraahdo gaal jecel nimanka dadkoo dhan hadda mujtamac oo dhan ileeyihiin maxaad nimankii aad $100 siisay maxaad u sii daysay ba Soomaaliya oo dhan ay committee igu soo qorayeen maxay igu soo qorayeen nimankii soo Puntland waxa lagu yaqaan dadka masaalixiya dadka dad kala celiya dadka dad dhex gala dadka dad maxay ahayd dadkooda dulmiya ayaa Puntland lagu yaqaan anigoo gabadhaydii maqan tahay bay i dulmiyeen waxay fiiriyeen dadkan aan wadanka maxay ahayd u dhasho waa dad Soomaaliyeed laakiin dadka qofba deegaan buu leeyahay aan wadanka deegaanka ku ahay ayay fiiriyeen anigii oo dulmana oo gabadhaydii maqan tahay oo aan xawaalada gudaheedii oo kamaradu saa ugu xidhan tahay aan saa lacagtii ugu dhiibay ya oo ay dhahan muslim baanu nahay walaala gaal jecel oo isku baanu nahay ay cadaysteen iyagu maxkamadda dhexdeedii ba haddana aniga Puntland dhakada iga fuushay halka dhakada iga fuushay oo gabadhaydii maqan tahay oo la yiri waad sii daynaysaa shuruud iyo waxa la galay maxay ahaydeen shuruud baa la galay shuruudii la galay Sheikh Ahmed Daahir baa loogu tagay masaajidka oo sheekha magaalada ama gobolka Puntland ayaa loogu tagay masaajidka oo maxkamadaasi wixii ay kala saari weydo kala saara waana loo wada geeyay Sheikh Ahmed Daahir heshiis buu soo jeediyay heshiiskii uu
ugaasyadooda iyo nabadoonadooda nimankaa gaaljecel soo jeediyey wuxuu yidhi nimayahow gaaljecel gabadheedii baa maqane yaa ama doona oo qarashkiina isku qabo oo doona gabadha idinku maqan tahay ama gabadha 6,000 oo dollar u xukuma gabadheediina ha raadiso yaa waayahay 6,000 baanu keenaynaa bay yidhaaheen 6,000 ee ay keeni lahaayeen nimankaas waanu hanaloo sii daayay nimankii yidhaaheen anigiiba waa nimankii layga furfuray waaba iska sii daayay damiin bay yeelatay lacagtii 6,000 baa la yidhi baa la doonayaa 6,000 kii damiintay xamar buu aaday kuwii la sii daayayna waa sagaarada tidhaahama habeenkii markay soo gasho waxa la yidhi sagaarada habeenkii qorraxdu markay dhacdo waxay tidhaahdaa soo gal markay qorraxdu soo baxdana ilaahu magantaabaan ka baxay bay yidhaaheen oo xamar bay sii taageen xamar hadday istaageen dacwadii ilaa anagu hari mayna dad nool baa naga maqan Soomaaliyeed waxay sameeyeen dacwadii baanu qaadanay heshiiskii baanu qaadanay wixii baanu xamar la tagnay annagoo aan dawladda Soomaaliyeed u dacwoon ayaa harti iyo waxa loo shiray iyo gaaljecel harti iyo gaaljecel hadii loo shiray la dhigay oo nimankii harti gogoshii dhigeen baa heshiiskii la soo saaray culimadoodii nimankiina aan ahaa ay sheeg nabadoonadoodii iyo ugaaskoodii iyo dhalinyaradoodii iyo xildhibaankoodii heshiiskii waxay isugu jawaabeen ilaan dad baaba isqabta waxay isugu jawaabeen madax furasho bay ahayd wixii uu Sheekh Axmed Daahir xukuma ilaahay baan idinku dhaarshay may qabataa ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya ay sheer gareeya waxa weeye ilaahay baa og nin walba ilaahay baan si rabbi baan subhanahu wa ta'ala ka sugayaa in ilaahay uu yawmal milalayaan waxa weeye uu kuwa iga argooyo ma fahantay Sheekh Axmed Daahir lacagtii uu qoray markii loo geeyay ogolihii loogu tagay ee harti oo dhani ay fadhiyaan waa ma jeerteen iyo dhulbahante iyo dashiishe iyo warsangeli waa la fadhiyaa bay waxay yidhaaheen lacagtan aad sheegaysaan lacag madax furasho ah oo annaga madax furasho ah oo nalagu xukumay bay ahay ee maxkamadda ina keenay banaadir isla galay macnihii marka waa yahay annaga wadaadkayagii uu madax furasho uu xukum la yiraahdo waa xukuma yaa annagu ma koodii baanu leenahay kiina maxay ahayd madax furasho aan ahayn de ma koodina waa madax furasho mudul gubtay kama naxo kooduna waa madax furasho annaga kaayagii hadii madax furasho lagu sheegay yaa annagoo dad nool naga maqan yahay de kooduna waa madax furasho calaayi taxal gaal jecele sanadka inta ka hadhay baa isugu keenay sanadka inta ka hadhay hadaydu gabadhaydi ku keenin yaa bes bela dacayday la bixi belaaya dacayday la bixi wiil waa la waayi gabadh waa la waayi nin waa la waayi dacayday la bixi ama naga soo garbaxa ama iga soo garbaxa oo gabadhaydi waxaan ku qancaa way dhimatay annaga dilay waa tan gabadhaadi wax kale oo imara ma jiro gabadha yar ee qabiilada dhanka idin kala socotay ee aad ilaahay kaga xishoon weydeen ee aad martinimada kaga xishoon weydeen ee aad muslimnimo kaga xishoon weydeen ee aad maxay ahayd magan kaga xishoon weydeen ee wax walba aad wadaagteen ee ilaahay inta uu sharciga ku sheegay islaamka ba aad wadaagteen aad midna ugu aabaadii ugu maxay ahayd aad xeerin weydeen calaa iyo taxal walaalayaal una soo kala guro hadda walaalayaal una soo kala guro ilaahay hadaa taqaanaan ina soo kala guro Soomaaliya ina sheer gareey wixii daalina waa u jeedaan wixii maxay ahayd daacadana waa u jeedaan wixii daalina ilaahay baa arka wixii daacadana ilaahay baa arka laakiin Soomaalidu waa inda ku garaad ninkii isha dabana aadmiga arka ninkii uurka dabana ilaahay baa arka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد بني دين سلامي.